Madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dib u dhiska suuqa idaacadda. Mashruucan ayaa qayb ka ah qorshaha horumarinta dhaqaalaha iyo kor u qaadida bilicda magaalada. Dib u dhiska suuqa idaacadda ayaa la filayaa inuu kor u qaado ganacsiga, isla markaana uu fududeeyo bulshada goobo casri ah oo ay ku ganacsadaan. Sidoo kale waxa uu wax weyn ka tari doonaa suuq weyn oo casri ah oo ka weyn kii gobonimo oo ka casrisan kobaca dhaqaalaha deegaanka iyo horumarka adeegyada bulshada. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in mashruucani uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu dardargelinayo horumarka dalka iyo tayeynta adeegyada loo fidiyo shacabka. Wararka iyo dhacdooyinka Ciwan TV. Madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dib u dhiska suuqa idaacadda. Mashruucan ayaa qayb ka ah qorshaha horumarinta dhaqaalaha iyo kor u qaadida bilicda magaalada. Dib u dhiska suuqa idaacadda ayaa la filayaa inuu kor u qaado ganacsiga, isla markaana uu fududeeyo bulshada goobo casri ah oo ay ku ganacsadaan. Sidoo kale waxa uu wax weyn ka tari doonaa suuq weyn oo casri ah oo ka weyn kii gobonimo oo ka casrisan kobaca dhaqaalaha deegaanka iyo horumarka adeegyada bulshada. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in mashruucani uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu dardargelinayo horumarka dalka iyo tayeynta adeegyada loo fidiyo shacabka. Wararka iyo dhacdooyinka Ciwan TV.